qaybtii kale ee casharkeena haddii alla idmo aan idiin ballan qaaday maanta waxaan idigu yara sharaxayaa qaabka aad table laftiisa meesha usoo gelin kartaan. Table marka lasoo gelinayo maxaa loo baahan yahay? Tusaale table badan baad haystaa, kasoo qaad example weye. Halkan aan ku dhufanay tableskeeni caadiga ah, hadda meelna kuma dhufanin weli, haddaan bilaabaya. Laakiin marka halkan imaadno waxaan sameynaa waxaa la yidhahdaa maxay table oo kale. Insert baan tagay, insert markaan tagay waxaan tagay table markaan tagay saan oo kale table baa igu qoranba. Shax baan soo geliyey. shaxdii markaan meesha soo geliyo waxaan doonayaa waxaa la yidhahdo inaan hoosteeda qoraal ku sameeyo. Tusaalehaan hoos baan u yara qaadayaa. hoos markaan u qaado halkanaan imanayaa. marka hoostaasaan kaga dhufanayaa qoraalkaasaan qoraal caption ugu sameeyo. captionka waa tableka qoraalkiisa. kadib waxaan u bixinay table 1. sharaxaadiisa adaa yaqaana dee waxaa ku qoranayso Soomaalida oo kale iskaga qor. Soomaalida markaa ku qorto buuggaagii baad rabtaa tablada ku jira wixii tii ka bilowday inaad samayso. kan marka waxaan ka dhigaynaa heading 2 baan ka dhigaynaa, ama heading 3 ka dhig. heading 3 markaan ka dhigno waxaan tegaynaa meeshii la dhihi jiray maxay references. markaad references tagto waxaad tegaysaa pageka la yidhaahdo insert table of figures. table of figures markaad tagto halkan figure maaha maanta, wuxuu waa table. halkan waxaa ka dooranaysaa table, halkan waxaa ka dooranaysaa options, halkan waxaa ka dooranaysaa t oo kale, waxaa ka dooranaysaa t. where is the t? waan dhaafay, sorry. t markaan tagno dhinacna waxaan ka dooranaynaa waxa la heading 3. halkan haddii aadan meesha heading 3 kasoo dhigin kuu samaysi mayso, xisaabta ku darso. meesha aad rabta inaad gelisana waa doo inaad doorato. meeshay gelinaysaa? tusaale halkaas oo kale aan gelinaynaa soo maha. buuggeena meesha u sarreysa oo kale kan soo qaad, sorry, aan kan hoos keeno, halkaa geeyo, aan korkiisa geeyo, aan kaygana halkan imaado oo meeshaa rabto just intaa baan rabnaa inaan isku aqorno marka. ama kan soo durki haddaad doonto, isagoo kusoo durki, hal mar hoos u deg, one step up. kadibna halka markaad timaado waxaa rabtaa in halka ay soo galaan referenceski meesha aad rabto dee adigu inay soo galaan. pageka aad rabta ina tableka pageka ugu horeeya lagu qoraa. laakiin kuwan un heading 3 iyo heading 2 ka rabta ka dhiga adigu. qaabka soo gelinaysana waa aniga ku tusay, waa sidii kii hore oo kale, wuxuu ka duwan yahay ma laha. badhankaasaad gelaysaa. markaad badhankaa gashana waxaad dooranaysaa baan idigu yidhi maxay table. halkana waxaad dooranaysaa option markaad dooratana waxaad sii dooranaysaa maxay waxa la yidhaahdo t. halka waxaa ka dooranaysaa t ayaa ka dooranaysaa. t markaa ka doorato halkan soo fur, haddana heading 3 ka dooro, kadibna okay baa iska dhahaysaa, kadibna okay baa dhahaysaa. waa kaa soo galay table 1. waxaa la dhahaa Soomaaliya, wuxuuna yaalaa page 1 buu yaalaa. waxaa kaloo jira qaabka qolyaha carabiga qora, ama adiga laftaadu tusaale ahaan qoraal baa sharaxaad ka bixisay. wixii baa dadku fahmi waayeen kelmad oo kale. tusaale ahaan waxaad sharaxaysaa kelmadda la yidhaahdo madag. I don't know kelmadda hadda just waan fahansiinayaa. kelmad qoraal shay dheer markaa sharaxdo aad rabtaa inaad xogaa sharaxaada ka bixiso. waxaad tegaysaa home, shayga dhinaciisa adoo taagan baad home tegaysaa. home markaad tagto, home aad timaado, badhankaa yar ay ku taalo square, x square ama laba jibaaran, kaasaa ku dhufanaysaa. markaas waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan numberkii. tusaale number 1 bay ku ahayd soo ma. hoos baad iscadhow waad tegaysaa, waad ka qaadaysaa badhankii jegta. eego inaad ka qaado uusan hadhaysnayn. hadduu hadhaysan yahay wuu kuu dooran yahay weeye, hadduusan hadhaysana kuuma doorno weeye. iska tag adigu. waxaad tegaysaa meeshii ahayd references markaad tagtaana waxaa ka tegaysaan meesha la yidhaahdo footnote. qoraal hoose ayaan sameynaynaa. footnote markaa samaysaan wakaa kuu soo galay. footnotekii hoos ba iska tegaya, isagaa hoos tegayaba wakaa. waxaa leedahay madag waxaa la dhahaa eeg saas oo kale. marka that is footnote markaa sameynaysaan isagana madag waxaa la dhahaa baa dhahaysaan saas oo kale. marka caadiyan waxaan rabaa inaad saa u fahantaan. intee wax baan sameynay? dhowr wax baan sameynay. waxaan practice garaynay maanta sida table loo soo geliyo. waxaan kaloo practice garaynay sida loo soo geliyo table of content. waa pageka reference. waxaan kaloo practice garaynay sida note loogu soo diro. ending note iyo footnote labadaba kusoo diri kartaan. next footnote baa dhihi kartaan oo kaaga kusii xigo weeye. waxaa kaloo sameyn kartaan waxa la yidhahdo table. halkan aan ku sameynay waad arkaysa in sawiraan soo gelinay. marka waxaan idiin rajayn doonaa inaad pageka ku xidhnaataan
casharkana si fiican usoo practice garaysaan. casharo badan oo kale dee idin dhaafi way jiraan. kuwa website-kii ayaa in yar ka dhiman yahay, ad ka daalacan kartaan oo si professional ah. qeybta referenceska inbaa inoogu dhiman, intaana hadda ayaan sharaxaadeeda dhiibaynaa insha allah.